يا باحثا عن خير صحب في الحياة، صحب بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا. daawo waxaan ku soo qaadanaa barnaamijkan qisooyin dhab ah oo dhacay oo xaqiiqo ah. صحب بقربهم السعادة والنجاة. amaanada markaad ilaalisay, xaaraanta markaad iska ilaalisay, ayuu ilaahay muxuu kugu abaalguday inuu ku siiyo aniga iyo guriga iyo wixii aad ka tagtayba oo xalaal ah inuu ku siiyo. بقربهم السعادة والنجاة. faatimada aan ka sheekaynaya ee axmed cabditawaab u dhalay waa aniga maanta idin hortaagan, macallimada idin ah. sidaa daraaddeed waxaan idin sheegayaa bay ku tiri khayr haddaad samayso waad helaysaa. بقربهم السعادة والنجاة، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه. adigu aabbahaasaad ula dhaqanto sidaad hooyada ula dhaqanto ayuuma carruurtaaduna marka weynaadaan ay kuula dhaqmayaan. دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء، درب المعالي دربهم لم يسلكوا دربا سواه، فدربهم درب الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. daawada ku soo dhawo barnaamijkeena qisooyinka nolosha, qisooyin dhab ah oo xaqiiqa oo dhacay ayaan soo qaadanaynaa si aynu ugu waana qaadano, aad ugu waana qaadato, aan ugu waana qaato. dab qisadan maanta waxay ku saabsan tahay nin macallin ah ayaa waxa uu dhigayay maadada xisaabta. galaaskii markuu saa u soo galay ayuu maadadii bilaabay. maadadii markuu bilaabay xisaabtii ayaa ardayba galaaskii soo galay. ardaygii galaaska soo galay wuxuu fadhiistay halka ugu dambaysa uu fadhiistay. halkii ugu dambaysa markuu fadhiistay ayuu seexday. waa bugamayba. ardaygiiba wuxuu soo toosay iyadoo ardaydii dareereen. samuuradiina macallinku laba su'aalood ku qoray. ardaygu muuse u soo baraarugay wuxuu arkay labada su'aalood ee samuurada ku qoran. wuxuu is yiri ardaydii labada su'aalood baa homework looga dhigay oo loo diray qoro oo ka soo jawaab. labadii su'aalood buu qortay ardaygii. labadii su'aalood markuu qortay ayuu bilaabay inuu ka jawaabo su'aalihii macallinku samuurada ku qoray. su'aashii koowaad 4 cisho ku qaadatay inuu kaga jawaabo. maktabaduu galay, akhris badan buu sameeyey, bal wuu karaahiyeysan macallinka su'aalahan u dhiibay adeegooda aad buu karaahiyeysan. laakiinse 4 cisho markay dhammaadeen su'aal buu dhammeeyey si fiican u saxay. xiisadii labaad macallinku markuu yimi ayuu ardayga yimi xiisadii. sidaa markuu u soo galay ayuu macallinkii u tegey. macallinkiiba ku yidhi macallin, xiisadii hore labadii su'aalada aad noo dirtay su'aal baan ka soo jawaabay. 4 cisho ay ku qaadatay su'aasha inaan ku jawaabo. tii kale laakiinse kamaan jawaabeen. macallin waqti ii sii aan ta kalena kaga soo jawaabeen. macallinkii baa yaabay. macallinkii baa yidhi war anigu su'aalaba iyo homework toona idiin maan dirin. labada su'aalada samuurada aad ku aragtay waa laba tusaale oo aan soo qaatay oo aan ku sheegayo in nimanka xisaabyahanadu ay garan waayeen. waa laba mas'alo oo xisaabyahanada caalamka oo dhan ay garan waayeen. markaan ka sheekaynayay in xisaabtu leedahay masalooyin laga jawaabi kari waayey ayaa tusaale waxaan u soo qaatay labada mas'ale laga jawaabi kari waayey waxa kamid ah baan iri labada mas'ala kamid ah. marka tusaale waxa u ahaayeen su'aalaha cilmigu ka jawaabi kari waayey ay tusaale u ahaayeen ee may ahayn homework aan adiin diray. la yaab bay noqotay arrintii waxay soo saartay maskaxda bini aadamka iyo noocay u shaqayso ayay soo saartay. oo sida u soo saartay labadan mas'ale laga jawaabi kari waayey ee cid garata la waayey ardayga yar baa ka jawaabay. oo siduu uga jawaabay wuxuu uga jawaabay isaga looma sheegin in laga jawaabi kari waayey. isagu markuu qoranayay ee uu ka soo shaqaynayay maskaxdiisa waxa ku jirtay labadan su'aalood waad ka jawaabi kartaa. taasaa waxa keentay inuu ka soo jawaabo. laakiinse haddii maskaxdiisu waqtigaa soo jeedi lahayd, haddii markii macallinku uu sharxayay labadan mas'alo maskaxdiisu ay soo jeedi lahayd labadaa mas'alo kama jawaabi kareen. sababtu waxa tahay maskaxda wuxuu gelin lahaa
inaan labada mas'alo laga jawaabi karin dawada qisada maxay tilmaamaysaa qisada waxay tilmaamaysaa wax mustaxiil ma jiro wax kasta waad samayn kartaa laakiinse maskaxdaada ku xidhanta maskaxda haddaad geliso waxan inaanad qaban karin ma qaban kartid maskaxda haddaad geliso waxan waad qaban kartaa waad qabanaysaa masaa'isha xisaabta ugu adag haddaad maskaxda geliso waad ka jawaabi kartaa waad ka jawaabaysaa haddaad geliso kama jawaabi kartidna kama jawaabi kartid waa adigii maskaxdaada saa daraadba waxaa la yidhaahdaa qofku waa inuu markasta ku dadaalaa maskaxda inuu kaga shaqaysiiyo qaybta odhanaysa positive thinking inaad maskaxda geliso inaad wax qaban karto inaad wax noqon karto inaad mustaqbal yeelan karto inaad meel gaari karto inaad madaxweyne noqon karto maskaxda geli laakiin haddaad geliso ma gaari karo ma noqon karo waxaas waa adag yihiin meel ma gaaraysa intaasay kusoo kobana qisadeena assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh بل سبحوه واشكروا سترون أرزقا ترى مثل السماء إذ تمطروا عند اللقاء تصافحوا